بسم الله الرحمن الرحيم waxaan noo bilowday cashirka physics-ka chapter-ka koowaad oscillatory motion. Oscillatory motion sidaan hore uga soo sheegnay qaybtii hore dhac markaan ka hadlaynay waxaa jira walxo socod walhadeed sameeya ama gariira. Walxahaas waana ay badan yihiin, waxaana ka mid ahaan dhahnay miisaanka, saacadda, walhada meel ka soo daldalan iyo wixii la mid ah. Dhammaantood walxahaas waxay wada leeyihiin socod gariir leh ay wada leeyihiin, waxayna ku walhadaan socod isku dabaridan. Walhade ayaana ugu dooran oo aan cutubkan si fiican tusaalooyinkiisa markaan aan guda galno u qaadan doonaa. Waxaana sheegnay walhadaha in uu ahay cuf goobo ah oo inta badan bir ah oo dun dhuuban oo adag meel kaga soo daldalan. Markii oo laga reexo barta nagaanshahana uu bilaabi doono in uu walhado. qaybta koowaad aan ku bilaabno marka chapter-kani oo ah oscillatory motion. Periodic iyo oscillatory motion waxaa jira marka socod kaleed iyo socodka la yiraahdo oscillatory motion iyo periodic motion. Labadooda marka aan kala qaadno mid walba qeexitaankiisa waxa uu yahay iyo tusaalooyinkiisa aan fiirino marka. Oscillatory motion is defined as the to and fro motion. waxaa lagu qeexaa lagu dhahay socodka hore u socodka iyo dib u socodka, macnaha sheega markuu to iyo from markuu dhahay from iyo to gadaal u socod iyo hore u socodka walaxda ay ku soconayso of aan ugu jirtay walaxdaasi laga soo bilaabo from its mean position oo ah barta dheelitirka ama barta nagaanshaha ayaa la yiraahdaa oo ah equilibrium position. waxaana tusaalooyinka kamid aan dhahnay saacad darbi ka soo daldalan iyo sidoo kaleeto simple pendulum walhada fudud ayaa tusaalihiisana kamid ahay. Oscillatory motion maxaa kamid ah marka ama tusaalooyinkiisa maxaa kamid ah? waxaa kamid ah kow, oscillation of simple pendulum, wareega uu sameynayo walhada fudud wareega uu sameynayo ayaa kamid ah. Labo, spring movement, waa dhaqdhaqaaqa moolada ay leedahay ama ay sameynayso. Saddex, vibration of strings, gariirka xargaha in musical instrument, agabka ama qalabka muusikada xarkaha ku rakiban vibrationka gariirka ay sameynayaan ayaa kamid ah. Afar, alternating current, qulqulka talantaaliga ayadana sidoo kaleeto waxay kamid tahay oscillatory motion. waxaan filayaa intaas waxaad ku fahanteen oscillatory motion waxa uu yahay waa socod hore u socod leh iyo gadaal u socod mid intaba leh, kaasoo walaxda ama shay uu kasoo bilaaban doono mean position oo ah bartiisa nagaanshaha ama bartiisa dheelitiranka oo loo yaqaan equilibrium position uu kasoo bilaaban doono. tusaalooyinkiisana waxaa kamid aan dhahnay walhada fudud, saacad meel kasoo daldalan oo walhanaysa, spring movement, dhaqdhaqaaqa moolada ay leedahay, vibration of strings, gariirka xargaha in musical instrument, qalabka muusikada uu leeyahay, alternating currents iyo qulqulka talantaaliga ah. saan filaya intaas waadix waaye. haddaba periodic motion asna muxuu yahay? Periodic motion waxa waaye socod kaleed waaye, waxaana lagu qeexaa asagana is defined as waxaa lagu qeexaa as the motion socodka that repeats itself, asiga nafsad ahaantiisa soo noqnoqonayo after fixed intervals of time, haddi waqti go-an kadib ayuu noqodkaas u sameyn doonaa. waa marka motionka asiga nafsad ahaantiisa haddi waqti go-an uu kusoo noqnoqon doono. tusaalooyinkiisa maxaa kamid ah marka? exampleskiisa waxaa kamid ah kow, motion of hands of the clock, socodka gacmaha saacadda ay leedahay, minuteska, hourska iyo seconds waxaa la hands of the clock ala saacaddaasi socodka ay sameynayso waxay kamid tahay tusaalihiisa periodic motion. Labo, motion of planets around the sun, socodka meeraha uu ku dul meereysanayo qoraxda. Saddex, rocking chair, rocking chair waxa waaye kuraasta markii oo hore iyo gadaal u liicayo ayaa waxaa loo yaqaanaa rocking chair. sawirkiisana waa kana dhinaca midig kaaga muuqdo. kuraasta noocaasi markii lagu fadhiisto oo hore iyo gadaal usoo liicayo ayaa waxaa loo yaqaanaa rocking chair. qodobka ugu dambeeya oo ah in oscillatory motionka uu yahay nooc kamid ah noocyada periodic motion. waxaa weyn periodic motion oscillatory motion wuxuu hoos imaanayaa periodic motion ayuu hoos imaan doonaa. markaas waxaa dhihi doontaa waa nooc kamid ah noocyada periodic motion. qodobka xiga waxaan uga hadli doonaa
frequency iyo period waxa la yiraahdo rakaad iyo kal waa maxay frequency rakaad muxuu yahay waa maxay period kalna muxuu yahay marka frequency haddii aan ku bilaawno and is the number of cycles made in 1 second waa tirada wareega halkii second ba la sameeyo second kiiba inta tiro oo wareeg la sameeyo ayaa waxa loo yaqaanaa frequency ama waxa la yiraahdaa Soomaaliga rakaad ayaa loo yaqaanaa and frequency halbeegiisa is a unit of frequency halbeega frequency halbeega rakaadku uu leeyahay wuxuu noqon doonaa hertz ayuu noqon doonaa and maadaama hertz oo noqdo meeshan qaacidada markii ay dhow problem ama example lagu diro qaacidada lagu heli doono frequency muxuu noqon doonaa and frequency waxa lagu helaa number of oscillation tirada wareega ama number of cycles na waa dhihi kartaa tirada wareega made in 1 second maadaama lagu dhahay loo qaybshay time taken aminta ay ku qaadatay ayaad u qaybin doontaa ama waqtiga ay ku qaadatay saas awgeeda sidoo ku imaada marka halbeega hertz sidoo ku imaaday waxa dhihi karnaa marka hertz wuxuu ku imaada dhihi karnaa tusaale ahaan number of oscillation halbeegiisa ase halbeeg ma lahan waa ka soo qaad inuu yahay hal divide by oo loo qaybshay time taken sida aan naqaano halbeega time-na waa second waxa ogaataa marka 1 of a second hal loo qaybshay second ayaa wuxuu kula ekaan doonaa hertz ayuu kula ekaan doonaa saas awgeeda halbeega frequency waa hertz qodobka xiga waa asna sidoo kaleeto period waa maxay period ama kal ama kal waxa la yiraahdo period asna wax kale ma aan is the time taken to make one complete cycle waa aminta ay ku qaadatay in la sameeyo hal wareeg oo dhameystiran halka frequency uu ahay tirada wareega ee la sameeyay second-kiiba halka periodka ama kalkan uu yahay aminta ay ku qaadatay si loo sameeyo one complete cycle hal wareeg oo dhameystiran halbeega period halbeegiisa asna waxa waaye second time iyo period waa isku micno second waaye halbeeg macna isku halbeeg waaye halbeeg time waa second period markii laga hadla asna sidoo kaleeto halbeegiisa waa second sidoo ku imaado waa arki doonaa qaacidada lagu helayo period waxay noqon doontaa time taken divided by number of oscillation aminka ay ku qaadatay shaygan sida u dhameystiro one complete oscillation maadaama lagu dhahay waxa u qaybi doontaa tirada wareega ayaa waxa u qaybi doontaa time-kii haddaba sidoo ku imaado marka halbeega second waxa dhihi karnaa marka halbeega second wuxuu ku imaaday time halbeegiisa waa second s divided by number of oscillation ka soo qaad inay 1 tahay ayada halbeeg malahan s divided by 1 waxay kula egtahay sidoo kaleeto oo siyaa markuu hal yahay lama muujiyo s ayay kula egtahay oo ah second sidaas awgeed waxa dhihi karnaa halbeega period waa second waxaa jira marka qaacido kaleeto oo sheegayso maadaama hadda markii aan fiirino relationship between these formulas xiriirka ka dhexeeya labadan qaacido markii aan eegno waxay isku yihiin cagsi ay isku yihiin reciprocal ay isku yihiin aan dhihi karnaa lid ay isku yihiin saas awgeeda frequency waxaan dhahnay waa number of oscillation divided by time taken periodna waxaan dhahnay time taken divided by number of oscillation macnaha qaacidadii oo la kala rogay ama la kala gediyo waaye haddii kala rogaas iyo kala gediskaas waxaa dhihi karnaa marka xiriirka labadan shay ka dhexeeya waxa uu yahay in ay labadooda reciprocal ama cagsi ay isku yihiin waxaa jirta marka qaacido kaleeto oo meesha ka dhalanayso qaacidadaas oo ah frequency-ga maadaama uu periodka cagsi ku yahay waxaa dhihi doontaa 1/t periodka maadaama uu frequency cagsi ku yahay asna waxaa dhihi doontaa t waxaa lagu helaa 1/f saan filaayo waa fahanteen oo maleena haddii aan galno example-diisa markii aan gaarno ayaa si fiican ugu fahmi doontaan tusaalooyinka iyo exampleska qaacidooyinkan unba adeegsan doontaa qaacidooyinka adeegsigeeda sidoo kaleeto waxay u baahan tahay fahan gooni ah haddii tusaale ahaan meesha hadda waxaa haysanaa laba qaacida haysanaa labada qaacida ah haysana waxa waaye frequency oo kaleeto number of oscillation oo loo qaybsho time taken iyo frequency waxaa loo helaa 1/t bal ka waran haddii lagu siiyo period oo lagu dhaho waxaa raadisaa frequency raadi waxaa lagu siiyo period waxaa loo frequency raadi ma waxaad adeegsanaysaa number of oscillation oo loo qaybsho time taken mise waxaad adeegsanaysaa 1/t hal oo loo qaybsho period ay adeegsan doontaa waxaad arki doontaa ardayda qaar markii period la siiyo frequency loo diro qaacidadan unba intay aadaan waxay dhahayaan macallinow number of oscillation lama siinin time taken lama siinin waxaana la siiyay period sidee ku soo heleynaa
ogow waxaa jirto qaacido walba meel ay ku habboon tahay givenka lagu siiyo oo problemkaas givenkiisa ayaad la soo bixi doontaa haddii period lagu siiyo qaacido ay ku habboon tahay jirto haddii lagu siiyo number of oscillation iyo time taken ayadana qaacido ay ku habboon tahay jirto iska ilaali marka qodobka xiga example koowaad qaacidooyinka marka waa kana kora idinkugu soo muujiyay si aad u fahantiin example koowaad 1.1 waxaa lagu dhahay a suspended mass culays ayaa waxaa la soo laalaadiyey culayskaas la soo lalmiyey ama la soo laalaadiyeyne makes waxa uu sameeyey 60 complete oscillations 60 wareeg oo dhammaystiran ayuu wuxuu ku sameeyey in 15 second 15 second gudahooda what is the period haddaba waa maxay kalku and frequency iyo rakaadka of the motion ee socodkaasi ogow marka waxaa lagu siiyey givenka soo qora marka hore givenkaaga muxuu noqonayaa haye isku day bay su-aashan waa sax givenkaaga muxuu noqonayaa number of oscillation waxaa lagu siiyey 60 complete cycle ayaa lagu siiyey ama 60 wareeg oo dhammaystiran ayaa haysataa okay kow givenkayga koowaad waa haystaa number of oscillation 60 ayaa lagu siiyey labo number and time takenkaagana meeqa waaye waa 15 second maxaa lagu dira marka period oo ah kalka question mark calaamad su'aal noo saar labo maxaa kale lagu dira frequency of the motion ayadana sidoo kale calaamad su'aal noo saar maxaa lagu helaa period waxaa lagu helaa time taken oo loo qaybsho number of oscillation maxaase lagu helaa frequency waxaa lagu helaa number of oscillation oo loo qaybsho time taken okay haye sidee noqon doontaa marka jawaabta u fiirso and number of oscillation 60 ayaa la siiyey time taken 15 second ayaa lagu siiyey period kaaga question mark oo macnaha wixii lagu dira waayo frequency qaabka aad givenka usoo qoran doonto qaabkaas waayo wixii lagu siiyey iyo wixii lagu dira soo qora marka koowaad labo marka wax xalinaysid solutionka number 1 waxaa shardi kugu ah inaad givenkaaga soo qoratid si aad ula socotid qaacidada aad isticmaali doontid iyo waxa kaa maqanba solutionka markii aan ka shaqaynayno qodobkooda u baahan doonto waxaa waa givenka waayo qodobka labaad markii aad ogaatid givenkaaga waxa lagu siiyey iyo waxa lagu diray markii aad ogaatid waxaad ku dhaqaaqi doontaa raadinta wixii lagu diray markaas period waxaan naqaanaa in lagu helo time taken oo loo qaybsho number of oscillation isweydii marka su-aashaan time taken ma lagu siiyey time taken haddii lagu siiyey wixii lagu siiyey oo qaadanay meeqa lagu siiyey 15 second number of oscillation ayadana sidoo kaleeto meeqa lagu siiyey waxaa lagu siiyey 60 isku qaybo marka 15 second oo ah time takenkii lagu siiyey oo loo qaybsho 60 waxaa ku soo bixi doona 0.25 second macnaha meesha hadda waxaa sameynay markii aan fiirino isbarbardhig ayaan sameynay waxaan isbarbardhignay qiimalna la siiyey iyo qiimihii aan raadinayna isbarbarno ogow marka mar allaala mar walba aad samaysid qaacida raadinteeda markii aad ku dhaqaaqid qaabka logical ahaan aad u raadinaysid waxa waaye in aad samaysid isbarbardhig la isla barbardhigayo qiimo la yaqaano iyo qiimo aan la aqoonin si aad u soo heshid qiimihii aan la aqoonin qiimihiisa sababta isbarbardhig ama qaacidada loo adeegsanayo waa sababtaasi periodkii isbarbardhigga markii aan sameynay macnaha qiimihii aan naqaano waa time taken iyo number of oscillation qiimihii aanan aqooninna waa periodka isbarbardhig waxaa kusoo bixi doona qiimihii aadan aqoonin qiimihiis waa kan hadda period qiimihiis ma aanan aqoonin waxaa noo soo baxaya eber dhibic 25 sidoo kaleeto frequencygaasna maxaa lagu helaa number of oscillation oo loo qaybsho time taken number of oscillation ma lagu siiyey 60 time taken ma lagu siiyey 15 isku qaybi 4 hertz kusoo bixi doonta waxaa kaloo jira marka qaab kaleeto oo frequencyga aad ku heli kartid waxaan naqaanay aniga laba qaacido naqaanay hadda period hal qaacido un baa ku baran inaad isticmaasho laakiin maadaama hadda periodkii aan soo helnay frequency waxaa dhihi kartaa frequency waxaa lagu helaa 1/t qaacidadaas waa adeegsan kartaa sabab oo adeegsanaa qaacidadan sababtoo period waa soo helay maadaama period soo heshay qaacidadan adeegsan kartaa oo maxaa dheynaa marka hal loo qaybsho period meeqa helnay 0.25 ayaa helnay maadaama 0.25 aan helnay isku qayb sidoo kale taasna waxaa kusoo bixi doona qiimahaas oo ah 4 hertz ayaa kusoo bixi doona labadooda ka jecesha adeegsan marka insha Allah qodobka saan filay waadix waaye example-ka xiga marka aan tagna asigana example-ka xiga maxaa lagu dhahay waxaa lagu dhahay if your heart rate haddii qaraaca wadnahaaga is 150 beats per minute halkii daqiiqaba uu is qaraacayo 150 beats uu qaraacmayo
during xilliga lagu guda jiray strenuous exercise and exercise ama maxaa la aalamiito dadaal fara badan iyo aalamiito adag aad samaynaysa xilli aad ku guda jirtay ayaa qaraaca wadnaha wuxuu gaaray 150 beats halkii daqiiqo beats halkii daqiiqo. What is the time per beat? haddaba waa maxay aminka per beat in units of second secondkii inta beat oo wadnaha qaraacmi doona meeqa ay noqon doontaa? Okay, waxaa lagu diray period macnaha what is the time marka lagu dhaho what is the period ugu marka meeshaas isku micno waaye. hadda waxaan loo diray period isweydiina marka givenkeena maxaa waaye? kow mar walba waxaa soo qornay givenka waxaa waaye horta number of oscillation tirada wareega meesha hadda bedelkeeda waxaa haysanaa number of beats inta jeer uu qaraacmo wadnahaaga 150 jeer. aminka ama timeka ay ku qaadatana meeqa waaye? 1 daqiiqo. ogow marka minute-ka waxaa u bedeli doontaa second ila su-aasha waxaa lagu diray units of second ahaan kusoo helaa lagu dhahay second ayaad u bedeli doontaa. waa inaad taqaantaa marka halkii minute waxuu kuula egyahay 60 second 60 second ayuu kuula egyahay. aan shaqo galna marka clipis waxaa lagu diray markaan time ama period waxa la yidhahda ayaa lagu diray. isku dayba intaanan ka shaqayn ka hor isku dayba meeqaa kusoo bixi doona haye. waa sax jawaabtaada marka haddii qiimahaas oo kuu soo baxay waa saxan tahay. isla fiirina marka inaad saxan tahay inay kaa qaldan tahay waddadii iyo nidaamka u raaci lahayd. marka kow waxaa sameynaynaa givenka soo qoro. givenkeena maxaa waa marka givenkeena wuxuu noqon doonaa number of beats bedelka haddaad isticmaal number of oscillation tirada wareega beatsa ka dhiganaya 150 haysanaa. waqtiga intaasoo 150 qaraac uu sameeyey wadnahaaga waqtiga ku qaatana meeqo ahay time second 1 daqiiqo. ogow marka timeka waxaad u bedeshaa 60 second minute waxaa u bedeshaa second. tusaale ahaan haddii lagu siiyo 2 minute meeqa second waa 120 second 60 time maxaa lahay 60 plus 60 ama 60 times 2 aad dhihi doontaa. period lagu diro calaamad su'aal isweydiina marka qiimo aan aqoonin waa haysanaa oo ah period loo diray qiimihii aan naqaana waa haysanaa oo ah number of beats iyo time second. maxaa sameynaa marka qiimihii aan aqoonina waxaa isla barbar dhiganaa qiimihii aan la yaqaana sababa iskula barbar dhiganaa marka si loo soo helo qiimihii aan la aqoonin qiimihiisa. okay aan bilaawna marka period waxaa lagu helaa waqtiga ku qaadata oo loo qaybshay number of oscillation haye timeka ku qaadata meeqa waa 60 second waaye oo loo qaybshay 150 beat. maxaa soo baxaa marka hadhow periodkaas ama waqtigaas wuxuu noqon doonaa eber dhibic 4 second per beat. beatkiiba wuxuu qaadan doonaa ama qaraaciiba wuxuu qaadan doonaa eber dhibic 4 second. isku day marka frequency muxuu noqon doonaa? frequency laba qaab ku heli kartaa si aan soo sheegnay. isku day jawaab soo bixi doonto nala soo wadaag insha Allah. intaas ayaan ku keenaynaa. waxaan idinkaga tagi doonaa assignment oo aan idin diri doono. isku soo day assignmentigaas jawaabihii idin soo baxo qalad iyo sax waxay noqdaanba kulli waa isla fiirinaynaa aan isla soo wadaagno insha Allah. assignmentigana waa wuxuu ka kooban yahay 3 su'aaladood waaye. 3 su'aaladood waa kuwan marka kulli saan filay sharaxaad igama baahnidin. su-aasha kood waxaa lagu diray period, su-aasha labaad waxaa lagu diray frequency, su-aasha saddexaadna labadaba waa lagu diray periodna waa lagu diray frequencyna waa lagu diray.